بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الكسر وهذا برنامج كارمها بلشده وعلى بكده هتان مقبهية تيفيجا استيان برنامج كتطبيقات كان وحين وجهد لدونا شغل أنت بهشنا كدير تدل كنا صومالية سامينتا أي كويا لتهيد النيرة الصومالية وحامرتي وجه برنامج كعكاش عبد السمد إبراهيم أو كمده النيرة الصومالية دل كجوده سوى كبرتي أنتوا هو ذا كجرنا وحيد لسه عسين دونا حنيجوا مصطفى حسن عبدي وهرين عكاش كسر برنامج كارمها بلشده تيفيجا استيان حرنتي مقالة المقدشة سؤال ورئيس هدي عن كويديو سيدي أي دليل الصومالية وساميسي شغلان تكجرت ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركو ورئيس وكلها برامجك STN يقول إنفاد كريسان أدبان وجا مهد علنا سيد قرة بدن يقول إنفاد كريسان برامجك وأحمد أدلو بعينه هدي أن سؤال شكو بالله oo ah siday u saameysay dhalinyarada shaqada la'aanta baasan ee ka jirto wadankeena dhalinyarada inay u saameysay siyaabo kala duwan taasoo arkaysa in ay dhalinyaradii iyo wadankii ay ka cararayaan iyagoo oo markaasi ka cabanaya shaqo la'aan ka jirto wadanka isla markaasina ay badaha ay markaasi ay galayaan oo ku dhamaanayaan tahriib ahaan oo isla markaasi questionkaas markii la weydiiyo qofka markaasi tahriibka aadaya ama wadanka ka cararayo uu sheegayo in ay shaqalaan u geysan marka saameynta ay yeelatay waxa ay dhalinyaradii oo wadankii nacaan isla markaasina ay naftoodii ay markaasi qarqatoornimo iyo halaag ay geliyaan saas ay u saameysay shaqo la'aanta ka jirto wadanka ama guud ahaan wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka aan joogno oo ah Banaadir mise magaalada caasimadda Muqdisho markaas taasaan ugu gudbi karnaa marka sababta ay saameynta ay ugu yeelatay ama shaqo la'aanta saameynta ay ku yeelatay dhalinyarada inay ka cararaan wadanka dhibaatooyin ay ka hayaan la oran karaa shaqo la'aanta dhalinyarada way ka dhaxleen isla tii marka hadda aan sheegno oo dhahno shaqada waxa waaye dhalinyaradii waxay uga cararaan wadanka shaqo la'aan marka in ay ka cararaan wadanka oo wadan kale ay tagaan طبعا يعني قفكا wuxuu la kulmi karaa waxyaabo markaas hore uu soo arkin sida hadda markaan tusaale ahaan soo qaadano tahriibka oo kale kasto findo aan ogeyn macnaha hadda oo maqal ugu tahay laakiin waxaan ka dhargsanahay in oo markaas naftooda inay ku weyn karaan dhibaatada ay ka dhaxli karaan baa kamid ah in ay qaxooti ay noqdaan baa kamid ah isla markaasina ayagoo oo raadinayo Peter Life nolosha hadda ay ku nool yihiin nolol ka duwan in ay helaan ayagoo oo raadinaya ee naftooda waxay gelinayaan inay dhintaan macluul u dhintaan qaxootinimo lagu shaqaysto marka waa la koobi karo yani dhibaatada ay markaas ay ka dhaxli karaan marka shaqo la'aanta ay ka cararaan marka ay tagaan wadamo kale intay gaarin baa wadankii ay u socdeen intay gaarin baa dhici karta xitaa in isagu qofkii uu sa gaarin oo yani uu dhaxda ka baxo miyaa la oran karaa dhalinyarada laftirkooda ayaa sabab u ah shaqo la'aanta ay la dala dhacayaan yes that's a very good questions saasan dhihi karaa sababtoo ah dhalinyaradu shaqada markaan ka hadlayno shaqada qofka uma imaata asagaa raadiyo wadankeena markaa si fiican loo fiiriyo guud ahaan waxaad dhihi kartaa shaqo la'aan kama jirto shaqa ka jirto haddaan dib ugu laabano dhalinyaro wax baratay ayaa waxa aadaysaa arkaysaa la shaqo la'aan baa jirto isla markaasna way tahriibayaan ama meel kale aadayaan qofka markuu uu wax barto inkastoo hadda markii la fiiriyo wadankeena 95% those who are service providers ay yihiin private ay yihiin oo dhihi karo macnaha already occupied waaye meelihii laga shaqeynayay oo shaqo ay dawlad haddana they are doing good because annaga markaan fiirino wadankeena markii la fiiriyo wuxuu ka fiican yahay isleedahay markii shaqada xataa lafta laga cabana wuxuu ka fiican yahay wadamo badan oo hore u jiray ayuu ka fiican yahay sababtoo ah wadan intaas burbursanaa oo dawladda ka jirin haddana dadkoodii markii la fiiriyo ay haddana waxa waaye inkastoo ay shaqo la'aantu ay badan tahay reedka aan shaqayn uu badan yahay haddana yani kuwa shaqeeyo meelaha ay ka shaqeeyaan waa dad private ah ama organizationada private-ka ayaa u badan marka haddaan usoo laabto questionka ma la heli karaa marka shaqada macnaha shaqo la'aantu yani shaqo waa loo heli karaa oo waxaan leeyahay dadka hadday mar ay wax bartaan oo qofka uu wax barto micnaheeda ma aha inuu shaqo helo kaliya ma ahan
waxa waaye those who are studying something from university must be increase something to the country economically in also creativity wax la inay sameeyaan oo ah initiative in la imaadaan anaga waxaan naqaanaa waxba qofku soo bartay wuxuu rabaa only for work yani work for ma jirto self work wax la qofkii ma isweydiina haduu shaqadii uu waayo xitaa inuu ku fakaro inuu sameyn karo mid la mid ah mana yani laba waayo shaqada waa in aad independent work wax la independent work oo anaga u naqaana self employment waxaa jirta a lot of niche markets oo dadka hadda aysan ku baraarugsaneyn oo qofka markaas yani aniga waxaan aad yani aan marka aan saas leeyahay ku bartilmaameysanahay dhalinyarada wax baratay dadku waa isku jiraan dad wax bartayna waa fi oo yani iyaga sameeyeen initiative oo hal abuur la imaadeen oo shaqaysto ama ha shaqeeyaan way jiraan kuwa aan wax baran macnaha waxa keenayso qof kasto oo fiicnaa xitaa waxa macnaha su'aal gelinayo يعني dadkii wax ka cararayaan wadankii model kale u ordayaan markii la weydiina waxa uu dhahay qofkii wadanka shaqo la'aan baan uga soo cararay even waxbaan bartay wadankii baan ka tagay meel kale aan shaqo u raadsaday shaqo la'aan baan ka soo cararay hadii si deeply aan u sifinan marka dhalinyarada inta ka tagayso mostly ma shaqeeyaan xagga su'aal meesha ku jirto waa hadii inta shaqo la'aan uga carareen oo xagga shaqo u raadsadeen xagga ma shaqeeyaan mostly waxa waxay ku tiirsan yihiin wax la cayr ama ishaag maxalada qofka qaxootinimo oo isku diiwaan geliyo oo sidaas uu ku marka total waxa la dhigi karaa dhalinyarada shaqo ma doonayaan ba macna taas ku soo koobadas wakartay hadiyaantada maxaa is leedahay dhalinyarada u horseeday in ay shaqo la'aan soo wajahdo way badan tahay ku waxa ka horta marka ugu horeysa markaan shaqo ka hadlayno waxa loo baahan waxa ugu horeysa security ama stability ku qofka yani inuu si xor ah degan oo ma sha Allah oo markaas yani insa jirin waxa oo finance inuu ku shaqeyn karo even kan hadda rabo inuu sameeyo asay laftiisa self employment inuu sameeyo ama initiative hal abuur inuu la imaado u baahan guarantee u baahan macnaha position ka meesha lagu shaqeyn lahaa laftiisa yani dad badan ayaa jiro creative lah wax abuur leh yani u baahan inay shaqeeyaan haddana yani aan u arkin macnaha lack of security ama safety insa jirin macnaha saas u arkaan marka waxa ku ka macnaha safety-ga yaan stikera waxa laba ka ayadana qofka yani inuu ban yani convenient uu soo ku ahayn macnaha inuu inta ka shaqo bilaabo ama shaqo ka sameeyo marka waa badan warsay maxaa u diidan dhalinyarada Soomaaliyeed in ay iyagu hal abuur sameystaan marka laga soo tago inay qof u shaqeeyaan anaga marka hore markaan wax baranayna waxa muddo in aan anagu baranayna in aan dad u shaqeyno ta fikradda oo nagu yartahay macnaha qofku inuu asaga uu sameeyo independent work oo shaqo macnaha markaas asaga uu madax bannaan yahay ama uu sameeyo hal abuur u la imaado inuu u noqdo waxaan ugu badan inta shaqeyso hadda waxaan leeyahay dhalinyarada markii la fiiriyo less than 25 wax ka yar shaqeeyo kuwa shaqeeya waxa u badan yihiin marka dad meel organization ama dad waxay u shaqeeyaan macnaha self employment waa ugu yaryahay macnaha so taas waxay tusaysaa qofka inuu sameeyo oo design cusub ama inuu asaga shaqeysto inuusan u barin laakiin inuu shaqeeyo macnaheedu marka aan leeyahay for organization ama whatever ay ahaato qofka uu shaqeeyo taas ayaan isdhihi karaa way sababi kartaa marka sidee dhalinyarada si iskooda ay hal abuur intay u yimaadaan oo samaysan karaan shaqooyin dadkana shaqo abuur u sameyn karaan iyaga dhalinyarada midkood great horta waxa jirta wax la idea sharing adduunka waxa jirta wax la idea sharing marka aragti inaad shaqo samaysid shaqo kasta waxay u baahan tahay investment in lagu sameeyo wixii marka shaqadaas investmentiga laba aan kala qaadina ideal investment iyo money investment sidoo kale in shaqadaas shaqo abuurkaas qofka waxa ugu horeeyo inuu la imaado initiative or design iyo waxa uu la imaado then sidoo kale bangiyada laftooda ay ka qayb qaadan karaan macnaha in shaqo abuur ay u sameeyaan dhalinyarada ay u sameynayaan by providing for microfinance ay u sameynayaan marka qofka inuu design garay oo aamin asay laftiisu inuu sameyn karo inuu shaqo keeni karo system uu ku soo kordhin karo wuxuu soo bartayna macnaha uu soo baran kaliya inuu ku shaqeysto inuu xitaa si profitable wadankii economically country wax dhan uu ku soo kordhin karo uu aaminsan yahay
dan uu helo marka qof support gareeyo dadka waxa isugu jiraan laba qof ideadii buu hayaa oo design fiican ayuu hayaa qofna lacagtii ayuu hayaa laakiin he does not have the system of running of that program ma hayo marka labadii qof marka wixii isku xiraya marka inta badan bangiga waxaan dhanaa shaqadiisa waxa waaye service uu qabto inuu isku xiro qofkii ideadii haye iyo qofkii markaas lacagtii haye cause of what يعني maybe أنا هاي فكرة في عن لكن أنا هاينين waxaan ku investigate but you have money but you don't have the idea to invest oo lagu rangareeyo isma ogaan karna marka the only way aan isku ogaan karna waxa waa inuu central positions isku ka keeni karo inuu jiro marka waxaan aaminsanahay bangiyada in ay yihiin dadka shaqo abuurka ku sameyn karo oo isku keeni karo those who have an idea and those who have money marka systemkaas waxa wuxuu abuuri karaa in uu shaqo yani qofku uu abuuri karo dhalinyarada shaqo loo sameyn karo وقرتي waxaa sheegtay qofna inuu hayo qarashkii lagu maamul karinaya dadka kale oo qofna uu shaqadii oo halabur hayo marka dadkii sidii la soo geeyay waa haddaan ka hadalnay yani dadka isma garanayaan adiga marka aan hayo ideadii adiga marka aad lacagtii in a symbol you cannot recognize easily si foos kuma garan karno laakiin hal meel baan soo garan karnaa meeshaas waa bangiga waxa waa the backbone of economic of the country waa meesha centerka ugu weyn ee dhaqaalaha ee wadanka isla markaasna provide gareeya social service kamana bangiga isku ka keeni kara sababta isku ka keeni karna waan sheegnay in adiga bangiga aad geesid idea sharing wax la hayo fikradda design-ka aad keentid ama qofkii marka asagana lacagta hayna bangiga inuu geeyo by depositing asoo sameeyna ama saving marka bangiga markaas symbol wuxuu markaas uu dhaxadin kara ama isku xig kara qofkii oo yani lacagta raadinay you need ad lacag u baahan tahay qofkan wuxuu baahan yahay idea businesskiisa loo wado so where you can get the money you need is a bank waa mana qofka meeshu lacagta ka helaya bangi waa qofkii kalena meeshu investmentkiisa wixii uu ka heli lahaa asagana bangi waa by putting on saving asoo ku sameeyna marka bangi waxa waa asaga kooka amana asal u ah mana dadka inuu isla raadiyo ama isku xiro mana inta badan marka financing investment yaasha yaryarkana waa qayb ayuu ka yahay oo shaqada bulshada loogu abuurayo sida macna dhalinyarada hadda ka soo qalin jabinaysa ama wax baratay oo iska joogto in yani ay sameeyaan ayagana laftooda yani shaqada iska ma imaato proposal inay sameeyaan oo yani ay soo bandhigaan waxyaabaha ay barteen fiiri anaga markaan wax baranayno waa hadaan ka hadlay waxa kaliya aan u baranaa inaan shaqeyno uma baranayna in aan anaga aan waxa aan baranay in aan dadka uga faa'iideyno bal waxa aan baratay ina soo bandhigi karo macnaha by making entrepreneur anoo fiirinayo waxa aan bartay inaan dhisi karo yani wax shaqeynayo hadaa keentid marka bangiyada shaqada waxaa wixii inay investigareeyaan saasuu ku imaanaa marka microfinance gartay marka sidee dhalinyarada Soomaaliyeed si waxa ay bartaan ay dadka kale u gudbiyaan ay dadka kale u baraan iyagoo shaqo kaliya u baran sidii loogu dhiirigelin karaa marka dhalinyarada qofka marka horeyso yani waxa ka horeyso wacyigelinta waxa ka horeeyo qofku inuu asaga markuu waxaan baranayo inay ka tahay dhab yani waxa la baranayo ma aha kaliya shaqo lagu helo qofka waxa ugu horeyso inuu self development inuu sameyn karo nafsadiisa ku horumarin karo macna يعني waxaan baranaa inuu bacad aad ka tahay isla markaana aad u baratid inaad wax ku abuuri kartid qof wax u sheegi kartid yani wax ku toosin kartid qofka intaas markuu ku dhiirado oo galaaska fadhiisto asagoo macnaha saas aaminsan oo yani aaminsan waxaan uu baranayo in uu yani wax uu ku shaqeyn karo wax ay yihiin ya markaas waxa awood u leeyahay markaas inuu design gareeyo ama uu sheego initiative sameeyo hadda marka fiiri dad badan wax abuurana way jiraan oo initiative kaas leh oo wax bartay oo ayaga wax soo yani create gareeyaan dad yani ayagana meesha dhibka taagana wuxuu yahay anagu waxaan ugu badan dadka yani lacagaha iska safe gareystay isla markaasna ayagoo no plan qorshe aan ka lahayn mana marka qof ayaa wuxuu keenayaa system cusub systemkii ayaa waxa waaye ayuu maalgelinaya mana yani 100 people ama 100 qof oo marka ayaa fiirsanayso oo lacag iska haysteen macnaha without purpose oo haysteen oo ujeed ka lahayn iska safe arkay
kii ayaa marka lasoo investigarinaya. If you remember aniga maan markin laakiin waxaa jirto bajaajyada waxaa ku horeysay baabuur la dhihi jiray saalishay taxi ahaan u shaqeyn jirtay sax oo Muqdisho hewlo waxaas ku qornaan jirtay macnaha it is a system qof baa soo propose garay laakiin muddo kadib suuqay ka baxeen why wala isweydii yes how why oga baxeen suuq wal soo arkay macnaha 100 people oo xajirtu lacago iska heeso without aiming ujeed ayuu kale iskaga saf garaysan because they don't have a plan ay ku investigate macnaha waxay arkayaan hal system oo magaalada ku soo kordhay arkayaan systemkaasi wada raacayaan marka ama businesskaasi wada raacayaan inkastoo aan yani ay fiican tahay markasta qofka inuu markuu wax bilaabay ama businesskiisa uu shati ka haysto isla markaasna ka xadidayo horta monopoly-gana ma fiicna dawladda yani waxa loo baahan dadka noocaas in kala dhaxayso markasta hadii dhaqaale laga hadlo shaqo la'aan hadii laga hadlo yani qasab government must be there way soo dhaxgalay koos wada asal waxa waa shaqada baahsan yani dadka shaqada oo fagaranaya ma aha private-ka waa dawladda because 95% dadka shaqada loo doonta ama meesha ka shaqooyinka oo provide garay private hadda u baahan that is why dhalinyarada hadana ay shaqo la'aan because they are not cover ma ka fagarayn karaan macnaha waa shaqo dawlad loogu talagalay marka halka macnaha waa other countries aad arkaysid dawladda 95% dadkan u shaqo tagaan hadda yani dadka dawladda u shaqo tagaayo iyo dadka markaasi oo private u shaqo tagaa private-ka u badan therefore marka dadkii private-ka ma wada ka fagarayn karaan marka dadkan dhan inay shaqo u abuuraan marka shaqo in la abuuro sida saxda waxa iska leh dawladda macnaha inay abuurto ayada abuuri karto laakiin qofkana laftiisa asaga ayaa wuxuu sameyn karaa waxa la self development by basing on what you have studied wuxuu bartay asoo ku base gareyn karo dhalinyarada haddii shaqo helaan kaalin intee lag ay ka qaadan karaan nabadda dalka haddii ay shaqalaanta ay ku sii jiraan kaalin intee lag ay ka qaadan karaan burburka iyo dhibaatada ka jirta dalkeena very good questions which needed su'aal aad wanaagsan waa dhalinyarada inay shaqo helaan faa'iidada ay ka qayb qaadan karto ama xasilloonida iyo wadanka sida oo qayb qaadan karto wax weyn ay u qayb qaadan karto because waxaan leenahay jobless it creates violence lack of security lack of stability yani shaqo la'aanta waxay abuurtaa amaan darrada ay abuurayso stability la'aanta ayada abuurayso because qofka markuu shaqo waayo يعني waxa ku soo dhacay karto anyway uu ku maareyn karo nafsadiisa marka qofkii in uu shaqo uu yani uu helo faa'iido marka wadanka uu leeyahay fast qofkii yani qof isku filan ayuu noqonayaa sida aan ognahay anaga Soomaalida markaan nahnay waan kaga bedelna adduunka horta shaqo la'aanta waxyaabaha u jirta waxa kamid ah anaga as Somalis markii aan nahnay dad waxaan nahnay dependent life nolosheen waa isku tiirsanta waxa waaye qof waa isku kornoolna macna yani nolosha markii laga hadlaayana waxay leedahay standards leedahay sida Abraham Maslow uu ku sheegay standards leedahay even though waqti hore ahayd oo ah basic iyo intermediate waxa kala qofka marka anaga Soomaali ahaan markaan anaga waxa u muddo anaga isku dhaxnool in ay basically qofkii wixii ku drive garinayo in uu shaqeeyo inay meesha ka maqan yihiin sababta maxay tahay marka qofka basic life-ka haduu waayo wuxuu ku qasban yahay inuu shaqeeyo shaqo kasta ha ahaato oo maxaa kamid ah marka basic life-ka waxaa kamid ah shelterkii iyo clothingkii iyo housing intii waxa arkaysa qof aan shaqeynin yani in uu helayo macna salahan mi myself waxaan qof baan la noorahay waan cunaa waan cabaa waan jiifta waa inta basically macna so ma igu soo dhacayso yani haddii igu soo dhacdana ma yani shaqo markaas isla markaas inaan raadiyo qasab iguma sii noqon macnaha ma sii interest gareynaa macnaha haddaan u soo laabto marka faa'iido iyo profitable-ka u leedahay qofka marka hadduu shaqo helo waxaan isleeyahay ku wadankii wax ku soo kordhinaa economical ahaan GDP oo kordhaya يعني قفك يعني وحاجته هلا pressure groups oo ah yani dadka inay abuuraan hadii shaqo waayaan oo kala sida in ay dawladda cadaas lafteeda ay ku yihiin because markasta oo la soo yani shaqo laga hadlayo waxa overgaray dawladda kooka marka in violence-gana yaraanayo stability-na imaanayso qofkii yani isku filaanahay economic ahaan wadanka uu hagaagayo nabadna la helayo taasan aaminsanahay hadii shaqo dhalinyarada ay hesho door ay ka haya ugu banaan
dhalinyarada Soomaaliyeed dalka si ay shaqo u helaan ugana baxaan shaqo la'aanta ka jirta dalkeena macnaha qof kasta wax bartay kaliya ma ahan qof kasta waxa loo baahan yahay inuu maareeyo horta noloshiisa macnaha oon ka sugan qof kale si hadda aan ka hadlaynin qofka markuu basically noloshu u haysto yani waxyaabo badan baa macnaha ka profit garanayo profession ku sameeynayo inuu shaqeeyo doorka oo banaan waxa waaye in qofkii wax bartay iyo qofka aan wax baranin oo yani uu raadiyo xal yani isla markaasina uu qaabku uu ku shaqeyn lahaa asaga abuuriya qof kale la abuuriya meel kale ka shaqeeya yani doorka oo banaan kaliya waxa waaye in qofkii uu ku fakaro in uu shaqeeyo wax ku soo kaliya macnaha inuu shaqeeyo ma ahan inay ka go'an tahay in uu qaabku u shaqeyn lahaa wixii system ahaan xitaa inuu design gareyn karo oo capability uu leeyahay markaas inuu يعني برشة حتى واحد كوسو كوري بكوس قف كمركو أو شقي وقف معناها واحد سيكوليشن وين برشة دي واحد كوسو كورينا ودنك واحد كوسو كورينا واحد بدن بمركز إسكا بدل معه مركز ودنك جودهان تا واحد إيمانه stability مركز ما تنا واحد إيمانه زي شقوين كي نسيب بها investment وبتو هذا أنا واحد نوير شقوين كوحيابها كوكا واحد كم أنا investment مجرى معناها local investment مركز لقى صوته واحد جرت ودنك استوى كوي تيسين واحد الله FBI oo foreign direct investment macnaha maalgashi shay oo kale manacid wadan soo maalgashanayso oo kale ma jirto because maalgashiyaas wuxuu u baahan yahay qofka macnaha maalgashanaya wadan yani waa in wadankii ku aamini karaa macnaha stability waan ay ka jirtaa inkastoo taasan u dhaafayo dawladda haddana waxay abuuri kartaa macnaha qayb weyn hadda contractyadan oo dawladda hadda ay galayso oo kale profitable ay u tahay macnaha everyone oo Soomaaliya oo waliba dhalinyarada sababtoo waxay soo kordhinaysaa investmentigas every contract that the government have been contracted will increase to employment rate kan uu badanayaa macnaha waa isla socdaan marka doorka marka ugu banaan waxa way qof kasta waa inuu ku talagalo qaabka asaga nafsadiisa uga bilaabi lahaa asagoo sameynayo يعني niche markets بدنا جرتو market بدنا هذا dadka insu ku baraarugsan oo u baahan in la invest gareysto ayaa jirta macnaha marka inuu qofka assessment sameeyo uu asaga nafs ahaantiisa uu sameyn karo wax macnaha aan u ah macnaha gooni u ah ka bulshada loo wadaago ugu dambeyntii sidee dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga bixi karaan shaqo la'aanta ka jirta dalka Soomaaliya ana xal si dhalinyarada ay uga baxaan shaqo la'aanta good sidee uga bixi karaan shaqo la'aanta horta waxa wax iska jiro oo hadda inta burburka uu dhacay oo aad u sii baahday horta wax shaqada macnaha xakameeyo ama abuuro saan hor u sheegnay waa dawladda ayada mas'uul ka ah ayada marka because dawladda waxa laga rabaa in ay dhalinyarada wax baratay in ay u soo bandhigto fursado shaqo ayada oo sameynaysa systemka wax kale kuma sameynayso hadda aan sheegin oo kale investmentyaas ama maalgashiyada shisheeye hadduu imaado oo kale employment rate kor buu kacaya waxay soo ofagaranaysaa dawladda ayada mas'uulka ah dadkan ayada ayaa laga rabaa marka shaqada systemka ee u shaqaaleysiinayso dhalinyarada in ay la imaato ayada oo yani inta badan hadda maxaa isleeyahay haddii gobolkan hadda oo kale aan joogno social service ama adeega bulshada oo kale haddii ilaa heer degmo heer waax ilaa haddii loo dhaadhiciyo shaqo abuur badan meeshaas ay ka imaan karto marka waa in dawladda lala shaqeeyaa security amnigana laga shaqeeyaa we need to work hadaan u baahana inaan shaqeyno that's my main task guud ahaan daawadayaal inta ayaa ku safmaraya barnaamijka arrimaha bulshada oo aad ka dayahanayseen muuqaalbahiyaha TV-ga Eastern waxa uu idinka imaanaya barnaamijka xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waxaana idinla socodsiinaya anigoo Mustafa Xasan Cabdi maada ka gaartay marti waxa uu ahaa barnaamijka toddobaadkan Ukaash Cabdi Samad Ibrahim oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku bartay barnaamijka ayaa waxaynu kaga hadlaynay sida shaqo la'aanta baasan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku haysata dalka ay uga bixi karaan inta aynu mar kale daawadayaal dib ugu kulmi doono barnaamijkan mid ka xiga sida iyo nabadgelyo